waxaad tahay milkiile leh ganacsi ku fadhiyo 20,000 ama ka badan adiga oo dhex jooga baqaarkaaga xilli ay shaqaalihiina baxeen halka aad adiguna bilowday dib u tirinta qalabka aad u baahan tahay isbuuca soo socdo sida biraha alwaaxyada iyo qalabka kale waxayna kaa qaadataa waqti fara badan waxaa jiro nidaam aad ku ogaan kartid maxaa ku yaalo iyo maxaad u baahan tahay isbuuca soo socdo waxaan nahay Waran Cloud and Software Solution oo ka shaqeeya horumarinta ganacsiyada dalka caqabadaha ganacsiyada qaar ee u kobcilayeen waa in xisaabinta ganacsiyadu u adeegsadaan gacanta taasina waxay u keeni kartaa laba arrimood oo kala ah waa in ay u maleeyaan qalab ka go'ay in uu u yaalo ama qalab fara badan oo u yaalo inay u maleeyaan inuu ka go'ay dib ay qalabkaas ku soo gataan caqabad keed la'aan kuma haysato ee waxa ku haysto dhibaato xog la'aan haddii aad rabtid inaad joojisid xisaabinta gacanta aadna bilowdid korinta ganacsigaaga waxaad u baahan tahay inaad ka fikirtid saddex shay kow haddii alwaaxda iyo qalabka kale aysan ku jirin systemka waxay ka dhigan tahay inuu shaygaasba kuu oolin jooji isticmaalka rasiidyada ama invoice-ka u guur isticmaalka rasiidyada digitalka ah systemka wixii la geliyo ayaa ah waxa dhabta ah haddii aadan isticmaalin nidaam kuu maareeya ganacsigaaga waxaad lumin kartaa dakhligaaga midda xigto haddii aad keento alwaax ama qalab kaleeto waa inaad toos u gelisaa systemka si lamid ah haddii aad iibisid miis systemku waa inuu si automatic u jaraa 4 lugood iyo alwaax kamida alaabta digitalka ah adiga uma baahnid inaad tirisid lugaha systemka ayaa si automatic iskaga jarayo markuu iibka dhaco tan waxaa loo yaqaanaa bill of material oo ka tirsan shaqada manufacturing-ka ugu dambeyn jooji qiyaasta aad ku sameynaysid marka aad rabtid inaad ogaatid qalabka ka go'ay ku sameyso tiro xadidan tusaale marka qalabku 10 xabo hoos uga dhaco systemka ayaa ku soo xasuusin doona adigoo u baahan inaad dib u tirisid ka soo qaad waxaad dhameysay shaqadii isbuuclaha ahayd ee baqaarkaaga kadibna waxaad bilowday dib u eegista taleefankaaga si aad u ogaatid qalabka ka go'ay kuwa ku yaalo qarashka kaaga baxay iyo inta aad ka faa'iidi doontid isbuuca soo socda fadlan booqo website-keena ama nagala soo xiriir WhatsApp number-keena